Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Halkan waxaan ku diyaarin doonaa cashar ka hadlaya Introduction of Accounting. Accountigu waa hab lagu aqoonsanayo loona kaydinayo si loogu gudbiyo xogtaas oo xidhiidh la leh, la iskuna halayn karo, lana barbar dhigi karo. Si go'aan qaadasho fiican loo sameeyo, waa in loo soo saaraa xog sax ah isticmaalayaasha financial information-ka. Xog sax ahi waxay isticmaalayaasha ka caawinaysaa go'aan sax ah in la qaato. Shaqada koowaad ee accountigu waa inuu caddeeyo waxqabadka shirkadda ka socda, inuu kaydiyo wixii la qabtay, iyo inuu soo gudbiyo wixii la qabtay. Waxaynu qaadan doonaa inta aynu casharkan ku jirno xeerarka accountiga kaasoo faahfaahsan. Waxaynu ku xigsiin doonaa sidii aynu u raaci lahayn iyo qaabka loo sameeyo. Marka aad u gudbinaysid external userska xog. External userska waxaa ka mid ah dadka shirkadda sheerka ku leh, dadka shirkadda amaahda ku leh amba deynta, iyo qaybo ka mid ah dowladda. Qofka accountant-ka ahi wuxuu xog u diyaariyaa external userska iyo internal userskaba. Managerska shirkaddu waxay u baahan yihiin xog, taasoo ka caawinaysa jihaynta iyo xakamaynta shaqada shirkadda ka socota, sida qaybaha iibka iyo suuqgeynta. Waxay u baahan yihiin xog macaamiishooda ku saabsan iyo wax soo saarkooda. Maamulayaasha shirkaddu waxay u baahan yihiin xog ay ku horumariyaan qorshe hawleedkooda. Casharkan waxaynu ku bixin doonaa inta waqtigeena ugu badan sida loo horumariyo financial accounting information. Shaqada accountigu waxay u kala baxdaa laamo fara badan. Haddaba waxaa jirta baahi si weyn loogu qabo financial accounting-ka, sidii loogu diyaarin lahaa financial statement-ka, heshiisyada lala gelayo agentska sida qaybaha dakhliga kala taliya, auditors-ka, consulting-ka. Management accounting-gu wuxuu ka caawiyaa kharashaadka wax soo saarka, wuxuu diyaariyaa budgeting-ka iyo khidmadda ay qaataan la taliyayaasha management-igu. Laamaha taxation-ka waxaa ku jira wax kastoo ay diyaariyaan tax returns-ka lala tashanayo, kuna saabsan sidii ay hantidooda ugu samaysan lahaayeen qorshe. Kuwa khaaska u ah accountiga ee khibrad fiicanna u leh waxay tegi karaan kana shaqayn karaan meelo badan oo shirkadda muhiim u ah si ay tababaro u siiyaan shareholders-ka. Aad ayaynay ugu baahan shareholders-ku inay tababaro qaataan sidii ay wax uga ogaan lahaayeen heerka ay shirkaddoodu marayso. Boqolkiiba 25 accountants-ku waxay ku shaqeeyaan public accounting. Public accountants-ku waxay ka shaqeeyaan taxation-ka iyo wixii talo bixin ah, iyagoo talo siinaya dad badan oo talo doonaya. Boqolkiiba 60 accountants-ku waxay u shaqeeyaan shirkadaha ama meelaha gaarka loo leeyahay. Boqolkiiba 15 waxay ka shaqeeyaan dowladda ama non-profit organizations-ka. Ethics-ku waa habkaasoo inoo oggolaanaya inayn kala garanno waxa saxda ah iyo waxa khaldan. Waa waxaynu ku horumarin karno waqtigeena iyo adeegga aynu qabanayno. Waxaynu awood u yeelan doonaa inaynu caddeyno waxyaabaha ethics-ka khuseeya, inaynu baadhno, dooran karnana wixii sax ah iyo wixii khaldan sidii aynu u ogaan lahayn, lana dooran lahaa go'aanka saxda ah. Financial accounting-ka waxaa lagu xukumaa sharciyo loo gooyay oo loo yaqaano General Accepted Accounting Principles ama GAAP loo soo gaabiyo. General Accepted Accounting Principles-ku wuxuu caddeynayaa saddexda ugu muhiimsan ee loo kala saaro xogta
Ta koowaad waa in ay xogtaadu tahay mid khusaysa waxa la doonayo. Ta labaad waa in ay xogtaadu ahaato mid lagu kalsoonaan karo. Ta saddexaadna waa in isbarbardhig lagu samayn karo. Isbarbardhiggu wuxuu inaga caawin doonaa waqtiyada dambe ee aynu u baahano Financial Accounting Standard Boards. Financial Accounting Standard Boardska waxaa loo aqoonsan yahay guruub gaar loo leeyahay, kuwaas oo sameeya xeerar accounting oo u gaar ah. The International Accounting Standard Board. The International Accounting Standard Boards, oo loo soo gaabiyo IASB, waxay u gudbiyaan financial reportska hab caalami ah oo la isla garanayo, taas oo u caddaynaysa kuwa danaynaya accounting-ga inay tababar si xeel dheer ugu lahaadaan Principles of Accounting. Heerka Objectives Principle. Xogta accounting-gu waa in ay noqotaa mid aanay eexi ku jirin, gundhigna ay u tahay in aanay cid kale ku tiirsanayn. Caddayntu. Cost Principle wuxuu inoo sheegayaa inay xogta accounting-gu gundhig u tahay koskii saxda ahaa ee la galay. Wuxuu la xidhiidhaa koskani sidii koskeenii hore u ahaa. Going Concern Principle wuxuu inoo sheegayaa waxaa loo qaadanayaa in shirkaddu ay sii jirayso, hawsheeduna ay sii soconayso mustaqbalka soo socda. The Monetary Unit Principle wuxuu inoo sheegayaa in keliya aynu rikoodh garaynayno xogaha accounting ee ka hadlaya lacag, sida lacagta doolarka amba lacag kale. Revenue Recognition Principle wuxuu inoo sheegayaa in la rikoodh garaynayo marka shaqada la qabto. Business Entity Principle waxay inoo sheegaysaa in la kala saaro howlaha gaarka loo leeyahay iyo ta shirkadda. Waxaa jira 3 nooc oo shirkaduhu u shaqeeyaan. A Sole Proprietorship waa shirkad uu leeyahay qof keli ah. Partnership-ka waxaa wada leh 2 qof ama wax ka badan. Corporations-ka waxaa wada leh dad fara badan, kuwaas oo aan wax shaqo ah ka qaban shaqada shirkadda ka socota. Waxaa loo doortaa boardskaas oo shaqada mas'uul ka noqda. Qaacidada gundhiga u ah accounting-ga waxay inoo sheegaysaa inay asset la mid tahay liability oo loo geeyay equity-ga shirkadda. Assetsku waa waxa qiimaha u leh ee ay shirkaddu leedahay ama ay maamusho. Waxaa ka mid ah cash, accounts receivable, land, building, supplies and equipment. Liability-gu waxay u taagan tahay deynta lagu leeyahay shirkadda. Deyntaas waxaa ka mid ah account payable, note payable, tax payable and wage payable. Equity inta badan waxaa loogu yeedhaa owner's equity ama owner's investment. Halkan equity-ga waxaan usii kala saari doonaa qaybo. Owner's capital-ka iyo revenue-ga waxay badiyaan equity-ga, halka ay withdrawals-ka iyo expenses-ku ay yareeyaan equity-ga. Inta aynu ku guda jirno rikoodhada shirkadda ka dhaca, waxaa muhiim ah in aynu ilaalino accounting equation-ku in uu isleekaado.